Briggs? This is Colton Briggs's place? And I'm his wife. You boys have woke up the devil. God damn it, Jimmy. You bringing hell down on us. sheekadan waxay ku bilaabmaysaa sanadii 1878 iyadoo la joogo gobolka Montana. Waa halkan nala barayaan in lagu magacaabo Colton Briggs. Briggs haliyey ee bulshadiisa ka dhex ahaa. Ninkan wuxuu aad ugu dheereeyaa dagaalka iyo shiishka. Wuxuu ciqaabaa tuug kasta oo deegaankiisa soo habaystaa. maadaama uu ahaa nin aad looga cabsado wuxuu haatan la shaqeeyaa dowladda. maantadan waxaa loo balansanaa in burcad lagu dhex daldalo tuulada. burcadkan wuxuu ka tirsanaa koox gangistira naxariis daran kuwaasoo dad guryaha u dhaca kadibna dila. sidoo kale waxay dil u geystaan qof kasta oo arkaa si aan loogu markhaati furin. ninka haatan ciqaabtan wajahaya waa Walter walaalkiisa oo ahaa hogaamiyaha kooxdan khatarta badan. Colton oo halkan ku sugnaa ayaa hubinay inay daldaladan u dhacdo si loogu talagalay. isagoo goobtan ammaankeeda sugaya ayaa wuxuu hubay in Walter uu halkan soo weerari doono si uu walaalkiisa u badbaadiyo. taliyihii magaalada ayaa sidoo kale goobjoog ahaa. Robert oo xukunkan lagu fulinaya ayaa geeri isku diyaariyey. si kastaba ilbiriqsiyo ka hor inta aan la daldalin fowdo ayaa goobtan ka dhacday. Walter oo kooxdiisa la socda ayaa jiha walba rasaas ka soo furay. mid ka mid ah xabadahan ugu horreeyay waxaa halashay taliyihii oo isla markiiba u dhintay. intii rabshadan socotay Colton Briggs oo isdejinaya ayaa waqtigiisa sugay. isagoo fursadan ka faa'iidaysanaa ayuu bilaabay inuu si degan u kala diro ciidankii weerarka soo qaaday. hal xabad oo keliya ayaa ku filneed mid walba inuu dilo. ugu dambeyntii Robert wuxuu ogaaday in Colton uu keligiis baabi'iyey walaalkiisa iyo kooxdii la socotay. isagoo quus taagan ayuu qor u soo qabsaday si uu Colton u dilo. laakiin Colton oo fara fududa oo Robert ayuu sidoo kale soo afjiray. kadib waxaynu aragnaa wiilkii yaraa ee Robert uu dhalay oo James lagu magacaabo. cunigan oo waxaan oo dhan arkay ayaa daawaday aabihiisa hortiisa lagu dilayaa. murugadiisa ka soko wuxuu sidoo kale eegayay Colton waxaana ka dhex guuxay rabitaan ah inuu maalin un aabihiisa u argudo. Colton oo wiilkan arkay ayaa isaga soo tagay soo aan waxba u geysan. wuxuu waqtigii socdaba 20 sano kadib waxaa dibna loo barayaa Colton oo haatan isbedelay. wuxuu gebi ahaanba isaga tagay noloshii dilka ku salaysneed oo qof caadi ah ayuu noqday. isbedelkiisana waxaa kaalin weyn ku leeyahay haweeneydan lagu magacaabo Ruth oo xaaskiisa noqotay. kadib markuu ayadu guursaday wuxuu soo tagay goobtan oo ahayd meel magaalada ka fog. waxay u dhashay gabar lagu magacaabo Brooke. Colton noloshiisa oo dhan waxay ku soo ururtay qoyskan. ma doonayo inuu mar dambe qof wax yeeleeyo. maantan isagoo faraxsan ayuu inantiisa iskuulka u kaxeeyey. si kastaba markay yimaadeen waxay ogaadeen in iskuulkan uu xiran yahay sababtoo ah macallinkii ayaa xanuunsanaa. markii fasax la shaaciyay Colton wuxuu bari u kaxeeyey goobtiisa shaqada oo magaalada ku taalay. wuxuu lahaa dukaan yar oo uu ku maarayay nolosha qoyskiisa. inta isaga iyo inantiisa ku guda jireen nadiifinta dukaankan ayaa waxaa muuqaalka noo loo celinayaa gurigooda. Ruth oo xarigii ka dejinaysa dharkii ay dhaqday ayaa waxaa si lama filaan ah u soo muuqday James oo weynaaday. wiilkan waa kii daawanaya geeridii aabihiisa oo haatan waa u koray. isagoo miskiin iska dhigaya ayuu Ruth soo dhawaaday. wuxuu sheegay in isaga asxaabtiisa ay jidka ka lumeen oo ayna u baahan yihiin inay siiso hoy ay ku sii nastaan. laakiin Ruth oo ahayd haweeney taxaddar badan ayaa dhagartooda dareentay. waxay isku dayday inay ka cararto laakiin raggan oo fardo watay ayaa si dhaqsa u soo qabtay oo gurigii ay dib ugu soo celiyeen. James ayaa markaas shaaca ka qaaday qofka dhabta ah ee uu yahay. wuxuu yidhi magacaygu waa James. ninkaadu aabahayga ayuu horteeda ku dilay. wuxuu qortay inuusan garanayn wax uu Colton u sheegay laakiin wuxuu u cadday in ninkaas uu yahay dilaa manaxa ah oo dad fara badan xabaalaha u diray. James wuxuu ku dhawaaqay inuu halkan argos u yimid iyo inuu iyada ka jarayo ficilladii uu seegeeda geystay oo Ruth ayuu markaas si xun u dilay. dabadeed Colton oo ay Brooke la socoto ayaa guriga ku soo laabtay. markuu guriga u dhaweeyay wuxuu dareemay inay wax qaldan yihiin. wuxuu meel kor ka arkay tali Jared iyo gacanyariisa. taliyaha ayaa si taxaddar leh Colton ugu soo dhawaaday. wuu yaabay markuu ogaaday in ninkan uu yahay Colton Briggs oo ahaa nin laga cabsan jiray oo maanta reerkiisa la ugaarsanayo. Colton oo faalooyinkan iska dhintaraya ayaa taliyaha weydiiyey sababta uu halkan u joogo. tali Jared wuxuu cadday inay ku soo baxeen dhawaq rasaas ay maqleen. markay halkan yimaadeen waxay arkeen meydka Ruth oo la dilay. Colton aad ayuu u naxay oo dunidii oo dhammi ayaa la wareegsatay. kadib markii uu muddo aamusnaaday Colton ayaa si tartiib ah u sheegay inuu kaliya xabaal u qodayo xaaskiisa oo meel u dhow hoygooda ayuu ku aasay. wuxuu taliyaha weydiiyey cidda dishay xaaskiisa. taliyihii oo ka diidaya ayaa ka codsaday inuusan argudan oo wuxuu ballan qaaday inuu dambiilayaasha horkeyn doono sharciga. Jared iyo ciidankiisa ayaa ugu dambeyntii baxay. si kastaba isla markii ay baxeen Colton ayaa furay sanduuq duug ahaa oo uu 20kii sano ugu dambeysay uu ku keydsanayay hubkiisa. dareenkiisu waa uu siin waayay inuu sii noolaado qofkii xaaskiisa dilay oo wuxuu diyaar u yahay inuu u argudo. intuu isdiyaariyay ayuu Brooke banaanka u soo saaray. wuxuu dad qabsiiyey gurigooda isagoo soo afjaray noloshii reer miyinnimada. subaxdii hore intan waxay aabbeeda ka dalbatay inuu guriga u celiyo. wuu xasuusiyey inaysan haatan guri lahayn. hadafkooda ugu weyn waa inay dilaan raggii hoodeeda dilay. wuxuu ballan qaaday markay shaqadan dhammayn inay guri cusub dhisan doonaan oo ayna caadi u noolaan doonaan. markay tani maqshay Brooke ayaa go'aankan aqbashay. dhan kale waxaan aragnaa Jared oo raadinaya James oo waxaa ka gooneed inuu dambiilayaasha soo qabto. intay raadintan guda jiraan ayagoo sheekaysanaya waxay ku soo dhaceen debin ay u dhigeen kooxdii James oo ku dhuumanaysa waddadan ay ku safrayeen.
waxaa labadan koox dhex martay israsaasayn ba'an maadaama James kooxdiisu ay meel sare saarnaayeen waxaa u suurtagashay inay gacanta sare yeeshaan oo waxyeelo ay u geysteen Jared iyo intii la socotay inkastoo aysan kooxdan isdhiibin haddana burcadii ayaa dib u gurtay markay dareemeen inaan la soo daba kici karin meel kale Colton iyo Brooke oo saacado badan waddadan ku soo socda ayaa meel fog ka arkay qof ku soo wajahnaa ninkan wuxuu ahaa gacanyarihii Jared oo si xun ugu soo dhaawacmay weerarkii gaadmada ahaa Colton oo feejigan ayaa ninkan qori ku qabtay markuu u caddeeyey wixii dhacay ayuu ku amray inuu Jared u geeyo markii ay yimaadeen Colton ayaa isla markiiba xirxiray oo qoryaha ka qaaday taliyaha iyo ciidankiisa dabeedna wuxuu bilaabay inuu si daran mindadiis u afeeyo wuxuu jeestay Jared oo uu ku eeday inuu macluumaad badan ka qarinayo oo wuxuu ku yidhi waan ogahay inaad taqaano cidda disha xaaskayga laakiin imaadan sheegin Colton ayaa jirdil ugu hanjabay taliyaha iyo raggiisa Jared wuxuu ninkan ka bari inuusan waxba samayn oo raggaas sharciga la horkeenayo iyo in uusan noloshiisa hore ku laaban laakiin Colton ma uusan dhegaysan warkan oo wuxuu mindadii u afeeyey ula dhawaaday gacanyarihii taliyaha oo dhaawacnaa isagoo wargiisa u baqayaa taliyaha ay shaaca ka qaadeen qofka xaaskiisa dila uu yahay James kaas oo hogaaminaya koox burcada oo xabsi ka soo baxsatay wuxuu sharxay in kooxdaas markii ay xabsiga ka soo baxeen ay weerareen qoyska Colton haatan waxay u socdaan magaalada Colorado si ay u soo qaataan lacag ay hore u dhaceen oo ay halkaas ku aaseen tani waa macluumaadka uu Colton u baahnaa wuxuu mindadii ula sii dhawaaday ninkii dhaawacnaa laakiin halkii uu waxyeelan lahaa oo si xirfad leh ninkii xabadda uga saaray kadibna intuu wada dabiibay ayuu ka soo tegay dhan kale James iyo kooxdiisu waxay yimaadeen magaaladan James wuxuu raggiis ku amray inay indha yeeshaan soo uga digay in Colton Briggs oo ahaa nin khatar badan oo waqti kasta halkan soo weerari karo Colton intuu magaaladan u soo safrayay habeen ayay ku noqotay wuxuu gabadhiisu sheegay inay cawada halkan hooyan doonaan oo ayna subaxii safarkooda sii wadanayaan intii ay dabka ag fadhiyeen Brooke ayaa iyadoo aabaheeda eegaysaa waxay wax ka weydiisay noloshiisii hore iyo sababta uu qof walba uga baqayo Colton wuxuu inantiis u caddeeyay in noloshaas ay ahayd mid aad u foolxumo badan oona soo afjaray markii uu hooyadeeda la kulmay wuxuu wacd ku maray inuu laanayo raggii qaribay noloshii qoyskooda isagoo ka murugaysan geeridii xaaskiisa ilmo ayaa ka soo daadatay maadaama ay ahayd markii ugu horeysay ay aragtay aabaheeda oo ooynaya waa ay la qiirootay waxay qiratay in murugadan aysan dareemin xitaa markii ay hooyada dhimatay laakiin haatan iyadoo aragtay aabaheeda oo ooynaya ayaa ay dareentay qof garabkooda ka baxay maanta xigta iyagoo safarkooda sii wata Brooke ee aabaheeda ka baraday inuu baro sida wax loo toogto Colton ayaa u bilaabay tababar oo wuxuu isla markiiba ogaaday in si dabiici ah ay iyadu toogashadeeda u saxan tahay muddo kadib waxay soo gaareen duulaadka magaalada Colorado halkaasoo kooxdii burcadda ay ku dhumanayeen Colton wuxuu bilaabay inuu istaraatiijiyad dejiyo wuu ogaa in James raggiisu ay gudaha ku sugayaan haddii uu si toos ah u abaaro waxay ka dhigantaa ismiidaamin wuxuu go'aansaday inuu magaalada gadaal ka soo galo sistaata Brooke ayaa soo jeedisay qorshe kale waxay soo bandhigtay inay marka hore iyadu magaaladu gasho waxay ku dooday inaysan burcaddan garanayn waxay soo eegi doontaa halka James raggiisu ay ku sugan yihiin kadib markay aabaheeda ku soo noqoto si fudud ayuu shaqadu ku qabsan karaa Colton waa aqbalay qorshahan Brooke-na gudaha ayay aaday nasiib daro qorshahan ayaa fashilmay isla markii ay magaaladu gashay raggii James ayaa iyada aqoonsaday Colton iyo Brooke waxaysan ka warqabin in James uu qoyskooda muddo dheer kor kula socday kahor intuusan soo weerarin burcaddan oo fahansanaa qofka ay Brooke tahay ayaa James horgeeyey James oo inanta eegaya ayaa ballanqaad fulxumo badan soo bandhigay wuxuu sheegay inuusan ayada dili doonin wuxuu keliya karbaa inay gacan geysto sida aabaheeda uu dabin ugu dhigi lahaa Brooke oo ninkan indhihiisa eegaysa ayaa tiri haddii uu qof dhimanayo adiga ayaa dhiman doonaa dibadda Colton oo waqti badan inantiis sugayay ayaa shakiyey markuu ogaaday inay wax qaldan yihiin ayuu magaalada soo galay wuxuu arkay nin isku dayaya inuu kadiyo Colton oo ka fogaanaya inuu rasaas adeegsado ayaa ninkan gadaal ka soo maray oo bareeyey mid ayuu raggan u beegsaday isagoo qoorta ka jaraya sistabaatee ugu dambeyntii aamusnaantan waa istaagtay oo dagaal buuxa ay halkan ka qarxay Colton wuxuu dilay burcadii bannaanka taagneed laakiin isagana mid kale ayaa dhaawacay odayga dhaawacan u geystay ee orday James oo wuxuu sheegay in Colton uu raggoodu laayay oo haatan uu ayaga u soo socdo James ayaa Brooke qabtay oo isagoo gaashaan ahaan u adeegsanaya ayuu bannaan ku soo jiiday wuxuu odaygii ciidankiisa ka soo haray ku amray inuu qori ku hayo gabadha halka uu isagana ku qaylinaya inuu Colton dibadda u soo baxo Colton oo dhaawacan oo weli dagaal diyaar u ah ayaa soo baxay James ayaa si jaajas ah ninkan u weydiiyey oo ku yidhi ma i garanaysaa marka Colton uma yidhi James ayaa shaaca ka qaaday qofka uu yahay wuxuu yidhi waxaan ahay wiilka Robert waxaad horteeda ku dishay aabahayga waagaas waan yaraa oo ma aanan lahayn awood aan kugu hor istaago laakiin maanta waxaan u imid inaan adiga ku dilo James ayaa markaas bilaabay ciyaar xaasidnimo leh wuxuu Colton u sheegay inuusan si fudud u duli doonin oo waa inuu marka hore laba mid kala doortaa James isaga ayaa qori ku hayay Colton halka gacanyarihiisana uu madax qori ugu hayay Brooke James ayaa yidhi haddii aad aniga i toogato si aad naftaada u badbaadiso odayga ayaa gabadhaada dili doonaa haddii aad ninkan toogatana si aad gabadhaada u badbaadiso aniga ayaa adiga ku dili doonaa Colton oo aan kala labayn ayaa bastooladiisa la soo baxay oo odaygii togtay wuxuuna badbaadiyey Brooke odaygii naf ma uusan la dhicin laakiin James ayaa isla markiiba xabad soo riday oo Colton xabad ka togtay Colton oo dhaawaciisu ahaa mid daran ayaa dhulka ku dhacay Brooke oo oonaysa ayaa u soo orday waxayna markii ugu horreysa aragnaa iyadoo oonaysa gabadhii aan weligeed ooyi jirin ayaa haatan iyadoo aan isxakamayn karin ooyday James oo dul taagnaa ayaa dhoola caddaynaya isagoo aaminsanaa inuu guulaystay
laakiin hal qalad weyn ayuu sameeyey oo wuxuu ilaabay inuu dilo Brooke oo ahayd gabadhii Colton. James intuu dabaaldegaya Brooke ayaa qoriga qabsatay. Islamada shiishkii aabaheeda waxay James ka togatay sujuudda oo isla markiiba u dhintay. Wuxuu laabatay aabaheeda oo si naf baxay. Wuxuu siiyey saacad ay ku dhex jirtay sawirka hooyadeeda taasoo isaga ka caawin jirtay inuu mar walba xasuusto qofka uu yahay. wuxuu intiisa u sheegay inay tahay gabar aqli badan oo wuxuu ku codsaday inay raacdo dariiqii hooyadeeda. Markuu erayadan ugu dambeeyay dhahay Colton Briggs naftii ayaa ka baxday. waxyar kadib taliye Jared ayaa goobtan yimid oo wuxuu arkay waxaan oo dhan ee dhacay. wuxuu si xushmad leh u eegay meydkii Colton. wuxuu qartay in inkastoo Colton uu ahaa dilaa haddana wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan. wuxuu ogaa in Colton uusan joogsan doonin ilaa uu xaaskiisa u argudo. Jared ayaa markaas Brooke u jeestay. wuxuu la wadaagay inay soo heleen lacagtii la xaday ee ay tuugada aaseen. halkuu lacagtan dowladda ku wareejin lahaa iyada ayuu siiyey. wuxuu sheegay inay ku laabatay deegaankooda oo ayna dib u furtay dukaankii aabaheeda iyadoo si nabad ah halkaas ugu noolaanaysa. wuxuu ballan qaaday inuu garabkeeda yahay mar kasta ay caawimaad u baahato. taliyaha eragiisa ayaa meydkii Colton dib ugu celiyay magaaladiisa si ay si habboon ugu aasaan. intaas ayuu muuqaalkan ku egyahay. magaca filimku waa The Old Way oo soo baxay sanadii 2003. subscribe saar oo noo reeb like sadoo caawis kanaalka. intaan muuqaal kala mid ah in kulmayno sidaas nabadgelyo.